عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa qodobada warkayga caawa doorkana waxa kamid ah xisbiga FUD ayaa isku yimid koongareyga afraad ee xisbigaasi xaalad cakiran ayaa ka taagan magaalada Ramadi ee dalka Ciraaq الرحمن الرحيم داود يلينتاس waxay ayeen qodobadii warka ugu door korona imikana ku soo dhawaad isagii oo dhan xisbiga FUD ayaa maanta guriga umada ku qabtay fadhiweynaha kongareega afraad fadhigaasi waxa ka soo qayb galay marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xeed markii halkaasi soo gaadhay waxa si diiran ugu soo dhaweeyay halkaasi ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ahna gudoomiyaha isbahaysiga UMB gudoomiyaha xisbiga FUD fadhiweynaha kongareega xisbiga FUD waxa uu joogay xubnaha xukuumadda wakiilada xisbiyada siyaasadeed iyo mas'uuliyiin kale waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka fadhigaasi waxaa looga hadlay sidii xisbiga FUD uu muujin lahaa ka shaqeynta siyaasadda hufan ee hoggaanka ah dalka waxaana uu ahaa fadhiweynahaasi kongareega xisbiga FUD mid ay si wanaagsan ugu muujiyeen ka shaqeynta mustaqbalka iyo ayaha dalka intaba xisbiga FUD ayaa sheegay in si weyn ay uga qayb qaadanayaan garabgalka doorashada madaxtinimo ee ka dhici doonta dalka oo ku rajo weyn sidii uu kaalin muhiim ah uga qaadan lahaa habsami oo qabsoomida doorashadaasi gudoomiyaha xisbiga FUD fadhigaasi khudbad ka jeediyay waxa uu ka waramay howlaha horyaal xisbiga FUD iyo doorka xisbigaasi uu ku leeyahay saxada siyaasadda ee dalkeena Naasir Umar ayaa ka warmay Chers amis, je voudrais ici saluer solennellement votre courage. saaxiibayaal waxaan halkani ka hambalyeeynaa dadaalka taageerayaasha xisbigu oo ay ka go'an tahay horumarinta xisbiga FUD waxaa xaqiiqdii hubaal ah in taageerayaasha FUD ay yihiin kuwo u bisil saxada siyaasadda ee dalkeena waxaanu ku rajo weynahay in kongareegani aanu ku kulannay maanta oo bisha ay tahay 26 Diseembar ee 2015 in uu noqdo mid raad ku yeesha xisbigeena waxaan dhammaanteen inoo yaal in aanu tallaabada hore u qaadno waxaan ku niyadsanahay in kongareegani ay ka soo bixi doonto midho wanaagsan oo xisbigeena u suuro geliya mustaqbal habboon jiilka cusub ee aqoon-yahanka waa in xisbigeena ay ka mid noqdaan xubnihiisa maamul taasina ma ahayn mid odayadii hore howlgabeen ka dhigaysa balse waxa ay tahay mid xoojinaysa wada shaqaynta xisbiga dhinaca siyaasadda dimuqraasiyadda jamhuuriyadda Djibouti ee dalkeenu waa mid xoogaysanaysa waayo horumarka dhaqaalaha ayaa dalbaya horudhiga xagga siyaasadda oo dalkeena u suuro gelin isku dheelitirnaan dhawaan waxaanu geli doonaa marxalad xasaasi ah oo doorashooyin madaxtinimo ah oo soo dhow waxaanu kongareegani uu fursad u yahay sidii xisbigeenu uu iskugu diyaarin lahaa doorashada madaxtinimo ee nagu soo aadan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ahna gudoomiyaha isbahaysiga UMP oo kongareeska xisbiga FUD ka hadlay waxa uu sheegay in uu guul u rajeynayo kongareega xisbiga FUD oo kamid ah isbahaysiga UMP marka la yeena Naasir Umar Permettez-moi tout d'abord de formuler à toutes et à tous ugu horeyn waxaa farxadaan la soo koobi karin ee ah inaan idinkala qayb qaato kongareega afraad ee caadiga ah ee xisbiga FUD kongareega xisbigani waxa uu ku soo beegmay xilli muhiim ah oo aanu u dhownahay doorashada madaxtinimo ee 2016
iyadoo taasi ay jirto waxaan halkani aan ka sheegayaa anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha xisbiga RPP ahna madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaan halkani guul aan u rajaynayaa koongareega xisbiga aanu saaxiibka nahay ee Fruud waxa aan idin xasuusinayaa mabaadi'da midaysan ee aanu wadaagno labadeena xisbi siyaasadeed iyo asxaabta isbaahaysiga UMP waxaana ay tahay mid ku salaysan daryeelka nabadda iyo xasiloonida ujeedaduna waa inaanu gaadhno horumar waara taasi waxay dalkeena u suuro gelinaysaa guulo hor leh oo maanta mustaqbal wanaagsan dalkeenu uu gaadho marwooyin iyo mudanayaal nolosha waxaa jira waqti uu qaranku uu helo lab iyo dhidig ay ka go'an tahay inay xoojiyaan qarannimadooda iyaga oo dadaalkooda ka gudbi doonaa dhammaan caqabaha ina horyaala sidii dalkeena jamhuuriyadda Jabuuti aanu u gaadhsiin lahayn horumar taama oo dhinac walba waxaa intaasi kadib halkaasi ka hadlay gudoomiyayaasha xisbiyada siyaasadeed ee lagu soo marti qaaday fadhigaasi oo intuba ka hadlay dareenkooda ku aadan fadhiweynaha maanta waxaana ka mid ahaa hadaladoodii sidatan xisbisada uu fadhiyan yahay uu sidaa u fadhiyo ee madaxdiisii iyo xisbigu waa himilo weyn waa xisbi dee la arkayo inuu karti leeyahay xisbiga Fruud xisbiga BND iyo xisbiga Fruud waxbay wadaagaan halgankii dimuqraadiyadda ay wadaagaan waana axsaabtii sarunta halka hore kaga jirtay halganka ee curisay hanaanka dimuqraadiyadda uu waddanka ku jiro xisbiga BND iyo anigana sharaf bay ii tahay isbaahaysiga weyn ee UMP ay ka mid yihiin axsaab sida Fruudka waa khayr weyn oo Jabuuti ay leedahay weeyaan waxaan kaloo ku hambalyeelayaa xisbiga Fruud ee ka-go'atiinka iyo rabitaanka ay sii quudayeen ay sii xoojiyeen nabadeeda adca ee maanta loo fadhiyo sanad guurihiisii 12aad taana ku hambalyeelayaa xisbiga Fruud hambalyan leh kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga BND madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle isagoo waqtigiisu adeeg yahay haddana waxa uu yimid fadhiweynaha xisbiga Kongareega ee Fruud madaxweynaha jamhuuriyadda kolkii uu halkaasi soo gaaray waxa si diiran ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha UMP mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed gudoomiyaha golaha baarlamaanka gudoomiyaha iyo xogayaha guud ee Fruud madasha uu ka dhacay Kongareega Fruud
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo khudbad ka jeediyey koongarega afraad ee xisbiga fruud waxa uu tilmaamay in xisbiga fruud uu ka mid yahay xisbiyada ugu da-da weyn ee dalka. madaxweyne waxa uu yidhi Ce jour est un jour mémorable, un jour que vous avez choisi pour faire votre congrès. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle hadalka uu ka jeediyey fadhiweynaha koongareega xisbiga fruit waxaa ugu horeyn uu tilmaamay in maalintan uu qabsoomay macno iyo taariikh gaar ah u leedahay dalkeenna waana maalintii ayuu yidhi 26 Desembar ee heshiiskii nabadda ay gaadheen xukuumadda iyo fruit waxaan jeclahay buu yidhi inaan ugu horeyn idiin rajeeyo in fadhiweynahani taariikhiga uu ku dhammaado guul ka qayb qaadanayso horowdhigga iyo wanaajinta mustaqbalka dalka waxaa hubaal ah inaan idinla qaybtamayo farxadda maalintani taariikh ahaan lagu xasuusanayo maalinta nabadda heshiiskii maalinta ay kala saxeexdeen labada dhinac inkastoo aan shakhsi ahaan ka mid ahayn mas-uuliyiintii saxiixay hase yeeshee muddo sanad ah oo raggii ila waday ay muujiyeen geesinimo annaga oo dhammaanteen rumaysan in aan gaari karno heshiis nabadeed oo dhan annagoo oo u baahnayn faragelin ama gacan shisheeye ayuu yidhi madaxweynuhu waxaana maanta odhan karnaa in heshiiskaasi aan ku gaarnay dhiiranaan iyo dadaal dalkeenna gaadhsiiyey nabad waxaana muddadaasi ka fikirnay aayaha dalkeenna nabaddiisa xasiloonidiisa iyo mustaqbalkiisa waayo heshiis la saxeexay ma dhalin karo nabad hirgashay annaga oo tixgelinayna mustaqbalka dalkeenna waxaana heshiiskaasi ku lamaanaynay isbaahaysi ay yeesheen xisbiga talada haya iyo furuud oo xoojinaya heshiiskaasi islamarkaasina baal marinaya dabandaabada siyaasiyiinta danaha gaar kale oo ayagu rabay in heshiisku burburo haddii mararka qaarkood dadweynaha qaarkood magaca furuud uu xusuusiyo dagaaladii hase yeeshee waxaan odhan karaa in magacaasi uu yahay tiir ka mida astaanta midnimada qaranka waxaa ayagu jira kuwo magaca furuud sheegta ama raba in ay ku meel maraan hase yeeshee furuudka dhabta ah muddo 22 sano uu adkaaday qaybna waa uu ka qaatay dadaalka loogu jiro horumarka iyo adkaynta nabadda waana sababta maanta aan u leenahay dalkeennu waxa uu u baahan yahay annaga oo dhan gaar ahaan maanta oo ay jiraan dad raadinaya kala qaybsanaanteenna oo raba in ay dhaawac ay soo gaadhsiiyaan xasiloonideenna iyo horumarkeenna sidaasi darteed waxaa laga maarmaan ah in xilligan aan xoojinno wadajirkeenna iyo midnimadeenna si aan uga gacan sarrayno kuwa duulaanka ku ah madaxweynuhu waxa uu carabka ku adkeeyey in xilligan aan marayno uu yahay wakhti adag oo xasaasi ah koongareegan waxa uu noqonayaa mid taariikhdu xusto oo laga dheehdo taariikhda dalkeenna ayuu yidhi waxaa inoo wada yaal in aan adkayno nabadda ka shaqayno wadajirka iyo midnimada qaranka iyo guusha nabadda xasiloonida iyo horumarka intaasi kadib waxaanu waraysi la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxaana uu ka hadlay doorka xisbiga fruud ku leeyahay siyaasadda dalkeena waxaana uu madaxweynuhu kongareega macsuum baan ku ahaa kowd aan ku warramay laakiin taariikh kala ku naban waa ka waxaan dee xasuusannahay odayadani ayaan soo wada galnayoo midnimada qaranka sidii aan u xoojin lahayn sidii aan cadowga uga dhabi lahayn sidii aan u adkayn lahayn dadka quluubtooda inaan barno nabaddu waxay tahay deganaanshuhu waxa uu yahay dalka jacaylkiisu waxa uu yahay marka 20 sano ayaa ka sokaysa si kastiba waa la iskugu dayna lana kala rujiyo waa la kari waay ciid weyn yeena noqotay de saasaanu imid meesha intaasi kadib waxaanu waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay fadhigaasi oo wax ku weydiinay dareenkooda ku wajahan kulanka howlaha koongareega ee fruud waxaana yidhaahdeen sidatan maanta waxaa ka qabsoomay guriga ummadda xisbiga fruud ayaa ku qabtay iskulankiisii afraad oo la maanta ay ku hagaajiyeen amba ay ku xuseen inay xisbiga fruud 22 sannadood nabad ka soo shaqaynaysa maanta sidaa wala garsoontihiinba nabaddu waa qaali wakhti xun baa maanta soconnaa marka xisbiga maanta fruud
nabadda oo waddanka reer Jabuuti maanta ay ku midoobeen taa oo weliba maanta madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geelle oo lagu soo safray maartay is-araga maanta ka dhacay guriga ummadda ay u wada leeyihiin dhammaan reer Jabuuti oo iskala qaadqaadin waxaan maanta isku ognahay waddanka reer Jabuuti haddaan nahay inaas wala garab taagno Fruud oo nabadda waddanka aan ka shaqeeyo wararka dalka waxaa kaloo ka mid ah aqoon kororsi looga hadlay xanuunka hargabka ayaa maanta ka furmay hodheelka Cassius waxaana aqoon kororsigaasi soo qabanqaabiyey wasaaradda caafimaadka ujeedada ka dambeysa ayaa ah in laga wacyigeliyo xanuunkaasi dhakhaatiirta si ay u daweeyaan bukaanka waxaana la meelmariyey dhowaanta xanuunkaasi qalab cusub oo si sahlan lagu ogaanayo waxaa xusid mudan in kal wareega cimiladu ay dhalin karto xanuun sida xumadda aqoon kororsigan oo soconaya muddo 2 maalmood waxaa kasoo qayb qaatay shaqaalaha ka howlgala xarumaha caafimadeed ee dalka Dr. Xuseen oo halkaasi ka hadlay waxa uu faahfaahin ka siiyey xanuunkaasi iyo qalabka cusub ee la meelmariyey maanta xaggan waxaan joognaa inaan isku dabaridno oo aan dhiirigelino dadka la dagaalanka xanuunka hargabka amba xanuunka dhibaatooyinka kale keenaya sida hargabka sida iyo dhibaatooyinka hargabku keeni karayo ee sanbabada taaban karaya xilliga wasaaradda caafimaadka isku dabariday shirkan oo wasaaradaha kale iyo dhakhtarada iskugu yeedhay oo u macnaynaysa xanuunkaas wuxuu ka yahay iyo baaqi kale aan ka helnay hay'adda markaan shir aan qabanay iyo project aan dhignay oo helnay qalab jadiida wadanka oo qalabkii ugu horeeyay la haysto wadanka soo gala oo noo dhib yareynaya inuu qofku dhibaatooyinku helo ama dhibaatooyinkan ku jira aan ogaan karno guddiga qaran ee ururada bulshada rayidka ayaa heshiis iskaashi iyo wada shaqayn la saxeexday mas-uuliyiinta maamul goboleedka ee 5 gobol ee dalka gudihiisa heshiiskaasi ayaa ku saabsan xoojinta wada shaqaynta mas-uuliyiinta maamul goboleedka iyo ururada bulshada rayidka iyadoo taasi ay la xidhiidho guddiga qaran ee ururada bulshada rayidka ayaa heshiis la saxeexday mas-uuliyiinta maamul goboleedka Carta heshiiskaasi waxaa qalinka ku duugay gudoomiyaha maamul goboleedka Carta mudane Cumar Jaamac Udawa iyo gudoomiyaha guddiga qaran ee ururada bulshada rayidka mudane Ismaaciil munaasabadaasi waxa uu joogay wakiilada bulshada rayidka ee gobolka Carta sidoo kale guddiga qaran ee ururada bulshada rayidka ayaa heshiis iskaashi iyo wada shaqayn la saxeexday mas-uuliyiinta maamul goboleedka ee Tujara heshiiskaasi ayaa ku saabsanaa xoojinta wada shaqaynta mas-uuliyiinta maamul goboleedka iyo ururada bulshada rayidka heshiiskaasi waxaa qalinka ku duugay gudoomiyaha maamul goboleedka Carta mudane Tujara hareerahde mudane Xasan Xuseen iyo gudoomiyaha guddiga qaran ee ururada bulshada rayidka mudane Ismaaciil Sanaase Saciid munaasabadaasi waxa uu joogay wakiilada bulshada rayidka ee gobolka Tujara ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka ayaa maalintii 23 bishan aan soo dhaafnay gacan u fidiyay tahriibayaal halis ugu jiray qarqoon ciidamada xeebaha ayaa sheegay in gurmad u fidiyeen dadkaasi ay taageereen dadkaasi oo ay ka taageereen markab dagaal oo laga leeyahay dalka Japan iyagoo markaasi u fidiyay qalabyada badbaadada ee xilli samata bixinta ciidamadu waxay intaasi ku dareen dadkaasi loo gurmaday xilli uu ka fadhiistay motorka doonida ay saarnaayeen waxayna badbaadiyeen 5 qof oo u dhashay dalka Tanzania oo sida shidaal kuna waday dalka Yemen intaasi kadib tahriibayaasha ayaa loo qaaday xagga iyo marsada kalluumaysatada ee Port de Pêche oo halkaasi loogu fidiyay gurmadka koobaad ee bani'aadantinimo ciidamada jandarmeriga ee Angola ayaa sheegay in ay hayaan 2 caruur ah oo walaal ah waalidada caruurtaasi ayaa u doonan kara caruurtooda oo lagu hayaa brigaadka xaafadda Angola amba ay la xiriiri karaan nambarka ah 22 22 8 6 aan ku celiyo 22 22 8 6
wararka caalamka caawa aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Ramadi ee waqooyiga dalka Ciraaq waxaa tan iyo 22 bishan ka socda dagaalo qaraar oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Ciraaq iyo jabhadda Daesh ka dagaalanta dalkaasi. Dagaaladaasi ayaa ka dambeeyay kadib kolkii ciidamada Ciraaq ay gudaha u galeen magaaladaasi oo gacanta ay ugu jirtay jabhadda Daesh. wararka halkaasi ka soo baxaya waxa ay sheegayaan in maleeshiyada Daesh ay wali ku jiraan bartamaha magaaladaasi Ramadi ee xarunta gobolka Anbar ee dalka Ciraaq. qodobka warkayga caawa dambeeyay waxa uu yahay mid kamid ah saraakiisha ugu sareeya ee mucaaradka ka dagaalama Suuriya ayaa lagu dilay dowladka magaalada Dimashq ee dalkaasi. wararka ayaa sheegaya in Zahran Aloush oo ahaa sarkaalkaasi la dilay iyo dhowr kale oo sarkaal ay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradaha Ruushku ka fuliyeen degmada ku taala dowladka caasimadda Suuriya. sarkaalkaasi la dilay ayaa waxa uu noqday sarkaalkii ugu sareeyay ee ku dhintay duqeymaha Ruushka tan iyo markii uu howlgalka ka bilaabay Suuriya iyo Ciraaq. xukuumadda Moscow ayaa geesteeda ku tilmaamtay dilkaasi saraakiisha mid ah argagixiso. dabadayaal waa naga intaa war wixii dalka iyo dibadda bacaan uga soo gaadhay intaan warkan oo kale dib u kulmi doono waxaan nagu dhaafinaa nabadgelyo iyo macna Allah.